شيخ محمد عثمان علسو إن شاء الله 10 دقائق، فليتفضل الشيخ مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة هدان قلبينا إيمان iyo waxaan khayr ku jira waxa uu la gelgisha nana tusiya xurmada qofka muslimka dhiigiisa xaraanimadiisa oo nusuus ah oo ama aayaadkii kitaabka Allah ama ahadiithda rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam way noo sheegeen culumadeena. nusuustana waa un hal mid oo maaratay ma ahin qof walba wax uga meel ugu qarsoon ma jirta. ilaahay waxaan weydiisanaynaa nusuustaas iyo wixii kale oo la sheegi doono waa Allah nagu anfaca, Allahna na waafajiyo inaan iska ilaalino. wax badan anigu kama hadlaaya. nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu noo sheegay qofkii salaad subax dukada ilaahay ballantiisa ku jira amaan alla kiisa ku jira maaragtay fa huwa fi dhimmati illah. salaada subax qofkii dukada dhimada ilaahay iyo ahdigiisa iyo amaankiisa buu ku jiraa. marka nabiga dadka wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam yaasan idinka dalbin ilaahay amaankiisa qof ku jiri inaas ku burisaan ilaahay yaasan idinka dalbin bir qiyaamo. amaanka ilaahay qof ku jira inaad dishid heerkaas way yani qof salaada subaxa dukaday ninkii dila qof maganta alla ku jiraas dilay magantaada nin ku jiro ninkii dilana waxaad ku samayn leedahay adiga waa garanaysaa tabar waxay ka reebtay ma ogi. maganta ilaahay buu ku jiraa qofkii salaada subax dukada. tan waa axaadiista nabiga kamid sallallahu alayhi wasallam. Allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu nagu leeyahay markuu noo sheegay laba wiil oo aabaheen aadam uu dhalay oo isdileen iyo sidii ay isu dileen iyo dulmigii. allana ayadda waxbuu nooga sheegay, nabigana warbixin buu ka bixiyey sallallahu alayhi wasallam arrintaas. alla wuxuu yidhi markuu labadii wiiloo isdishi iyo sidaa ahaayeen uu sheegay wuxuu yidhi min ajli dhalik كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نكي دلا نف كلا أندلن دولك إلهنا فسادين دولك فساد كي سوامه جدك بو قوي وما دي باميلا مرتلا xoolii buu dadka kala tagayaa. mashaakil uu samayn mafsadaas dhulka ka samaynaa qofkii dila naf kala aan dilin ama dhulkii ilaahay aan fasaadinin ninkii dila fakaannamaa qatala annaasa jamiica. dembigiisa wuxuu lamid yahay dadka dhan asagoo laay buu la dembiyay. xaalad khatiira way xaqiiqata. ninkii nooleeya oo naf dulmi loo dili lahaay oon dembi gelin ninkii badbaadiye oo dil ka fakiyana fakaannamaa axya annaasa jamiican buu leeyahy alla subxaana wa tacaala. waa isagoo dadka dhan nooley buu lamid yahay. liannahu qofkoo ninkii dila dadkiina islaayaan buu sabab u noqday. soo sidaas maahayn qof haddaad dishid ummaddan dhiiggeedii baad isu banaysay dadka dhan adoo lay baad lamid. tan kale qofkoo ninkoo muslima ninkii dila ama islaantoo muslimada ninkii dila waxaa weeye dadkan kalena waxba u reeban maayo waa isku mid muslimiinta. sidaan buu alla noo sheegay subxaana wa tacaala. nabiga calayhi salaatu wassalaam asiga oo xurmada dhiigga muslimkaana ka hadlaya arrintaasna noo bayaaninayo wuxuu yidhi aadam wiilkiisii horo yacni wuxuu yidhi naf ma jirta dulmi loo dilaya adduunka korkiisa ilaa yawma alqiyaama. naf dulmi loo dilaya ma jirta ilaa aabbaheena aadam wiilkiisii dulmiga wiilka kale u dilay
dembiga asaga ahay nuskiisu yeelanayaa buu yihi nabiga sala allahu alay wasalam. yani ka waran imisa ibna aadam dulmi loo dilay. qof kasta oo naf oo dulmi loo dilay, naf kasta oo dulmi loo dilay niskeedu yeelanayaa. maxaa jira? liannahu dulmi qof loo dilaa ninka bilaabi buu ahay. ummaddan oo nabad qabta oo joogta ninkii dulmi ku bilaaba oo qof muslima dilana oo ummaddii sidaa isku laayaana qof kasta oo arrimahaas iyo fasaadkaas ku dhinta dulmigiisii qoorta uu saaraya dhiiggiisii uu leeyahay. waa mafsada inteeda la eg ayuha alikhwa. haddii nusuus badanna noola sheegay ayadda qur-aankana sidaan tahay ayado kale oo culimmada noo sheegi doonana ay jiraan iyo axaadiid kale, annagana ummaddeeni aan arkayna ayuha alikhwa. berigii 91 meelahaas markii xamar iyo dhulkii dhiigga muslimiintii uu aada u daatay oo xaaladda adkaatay, yaa ninkii filimada dhigi jiray oo comba yaraa ayaa su-aal la weydiiyey oo bal xawalka waran baa la yihi noloshii xaalad say tahay. wuxuu yihi xamar wax walba qaali bay ahaayeen buu yihi, laakiin dhiigga dadka raqiis buu ahay. wax walba qaali bay ahaayeen laakiin dhiigga dadka raqiis buu ahay. dad muslimiin oo heerkaas gaareen. marka ayuha alikhwa, dhibaatada annaga dhexdeena aan isku samaynay ayaa waxaas noqday qofka soomaaliga adduunka meelaas ka joogaba qof dulli ah. arrintaas ma jirtaa? ma dareemaysaan mise ma dareemayno? qof aan dawlad lahayn, qof aan waddan lahayn, qof cid kasta oo maanta dulmi adduunka ilaan dulmi unbaa yeela. adduunka dulmiga aada u fara badan. cid kasta oo qabsato wax ku samaysa, cid ay ugu baqayso ama lagugula xisaabtama ay leedahay asan jirin oo maaragtay meel walba ku dulaysan buu noqday. culamada hadalka wayna ka hadleen, wayna ka hadli doonaan in badan inaan galama doonaye arrin yar baan idin xasuusinaya ayuha alikhwa. qofka sharci ma tahay ninkan waa munaafiq inaad tiraa gaaladu u shaqeeyaa ama gaaladu la xiriiraa ama waxaanu la xiriira inaad tiroo dishay sharci ma tahay? nin baa nabigu imaaday sala allahu alay wasalam. nabiga ilaahay oo khaniimo qaybinaayo oo xoolo qaybinayo u imaaday. wuxuu yidhi cadaalad samey buu yidhi, cadaalad samey moxamed. waxaad samaynayso cadaalad maayo, waa qaybin aan ilaahay wejigiisa loola jeedin buu yidhi. wuxuu ku leeyaha waye nabi moxamed sala allahu alayhi wasalam. waa qof ilaahay diintiisa duray. dabcan qofka nabiga sidaa ula hadlayo oo nabi maxamed duraya, qofka macnaha xarada uu ka baxsan yaha wey, xalad khatar wey. nabiga wuxuu u jawaabay horta asagii sala allahu alayh wasalam. wuxuu yidhi khibta wakhasirta idaa lam acdil. waad hoogtay waana khasaartay buu yidhi haddaan ana cadaalad samaynin. haddii ilaahayna cadaalad samaynaynin, rasuulkiisana cadaalad samaynaynin, yaa cadaalad samaynaayu yihi nabiga sala allahu alay wasalam. qofka meeshaas istaagay qof ka lita ma jiraan. asaxaabi baa seeftiisa soo qaatay. wuxuu yihi rasuulka ilaahiyow idaa qoortaan ka gooy, munaafiq wey, qoortaan ka gooy, dadku ku dhex jiraa qoortaan ka goyn. laa buu yihi nabiga sal alla alay slam, inuu dukanayo ayaa la arkaa buu yihi. qofkan munaafiqa ah oo dadka ku dhex jiro muslimiinta, shaki male munaafiqiin way ku dhex jiraan dadka, laakiin munaafiq xukunkiisa muxuu yahay? ma la dili karaa? maadaama uu muslimiinta la xugun yoos muslimiinta dhex joogo oo salaad dukanaya oo axkaamta muslimiinta ay ku socoto, muslimiinta la xugun yahay. xisaabta oo ah munaafiqnimada iyo qalbiga wax ugu jiro ilaahay baa kula xisaabtamaya subxaana wa tacaala. laakiin uma banaana qof muslima inuu dila. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo waxyi kusoo degay oo munaafiqiinta dhabta garanayay, hal nin oo munaafiqood nabiga dili ma maqasheen sala allahu alay wasalam. cabdullahi ibni ubay baa jooga, munaafiqiin kale oo la garanayeen baa jooga, nabiga asagaa dadka u sheegaya sala allahu alay wasalam. intaasoo mar bay asxaabta soo bandhigayen oy leeyihiin aan dilna. waa diidiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam hal mara. qof ma dhicin taariikhda islaamka nabiga inuu munaafiqnimo darteed qof u dilay ma dhicin. hadalka nabiga wuxuu ahay sala allahu alayh wasalam,
umirtu an uqaatila annaas waxaa lii faray inaan dadka la dagaalama ilaa ay shahaadada ka qiraan tawxiidka risaalada ay ka qiraan nabiga sala allahu calayhi wasalam oy salaada ka hagaajiyaan oy zakada ka gutaan hadday sidaas sameeyaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum waxay iga ilaaliyeen oo iga reebeen oo iga xaaraan iga noqotay dhiigooda iyo xoolahooda dhiigooda xaaraan buu noqday mar hadday salaada dukadeen oy ashahaateen xoolahoodiina xaaraan bay noqdeen in la taabto markaas intii kuma dayin nabiga sal alla alay slam wa xisaabuhum cala allah xisaabtoodana ilahay agtiisa ay taalla waxaa xisaabtooda ilahay agtiisa ay taalla waxaan ay samaynayeen hadday wax lilaahi iyo daacad ka tahay oo ilaahay wejigiisa ula jeedaan ilahay baa ka abaalmarin waxaan ay samaynayeen hadday isku ilaalinayeen oo nabiga ilaahay ku khaldayeen ama qof kaloo muslima ku khaldayeen ilaahay baa ka jazayn laakiin kuma banaana mar haddii qofka dukaday oo tawxiidka qiraayo oo dukaday dhiiggiisa jid uu kuga banaananayo male marka haddaba ayuha alikhwa si umadnimadeena iyo jiritaankeenina aan usoo celina oo cizi ilaahay nooga soo celiya oo dulligaan ummaddii ay ku dhacday aan ugu badbaadna ilaahay agtiisana aan uga badbaadna oon ilaahay nooga raali noqdo subxaana wa tacala cadaabkaas khatarta ah oo nusuusta hadda noola aqrina aan ugu badbaadna waa in arrimaha diinteenna iyo nafteenna waa inaan dib u muraajacayna hadda waxaan noola sheegayaa haddii isu kaalmeeyaan samaawaadka iyo ardada dadka joogo hal nin muslima dhiiggiisa dilkiisa hadday iskugu kaalmeeyaan ilahay waa u ciqaabi lahay ciqaabkiisa kusoo dejin lahay subxaana allah xaalad adag weeye marka insha allahu culimadeena ayaa barnaamijka noo sii wadi doonta soo dhawaada